waa jimcihii saddexaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Alxamdulillaah, Allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale oo na soo gaarsiiyey. Sidoo kaleeto waxaan ku jirnaa 10kii ugu dambeeyay ee bisha barakeysan Ramadaan, 10kii ugu khayrka badnaay. Soo dhawaada ayaan idin leeyahay. Bismillaahi al-Fattaaxi al-Caliim wassalaatu wassalaamu calaa rasuulihi al-Kariim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Walaalayaal ku soo dhawaada Xafsa World, meel walbo adduunka ka joogtiin. Waxaan idin wada rajeynayaa kheyr iyo caafimaad dhammaantiina. Ramadaan mubaarak. Caawa waa jimco aan badino ku salinta nabiga sallallahu calayhi wasallam. Allaahumma salli calaa sayidina Muxamed wa calaa aali Muxamed. Sidoo kaleeto xasuusi eelkaaga iyo asxaabtaada sida dad badan ee ugu saliyaan nabiga sallallahu calayhi wasallam habeenka jimcaha iyo maalinta jimcaha. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay maalmaha ugu khayrka badan waa maalinta jimcaha ee badiya ku salinteeda habeenka jimcaha iyo maalinta jimcaha. Intaa awoodid ku sali insha Allah. Haddii aad gacanta ka shaqeynaysid, haddii aad telefoon isticmaalaysid xitaa, maanta dhan afkaaga waa ku celcelin kartaa insha Allah. Sidoo kaleetana sii sheer gareeya addaaluuna cala alkhayri ka faacilihim. Qofkii qof kheyr la wadaaga sida asiga oo sameeyey oo kale waaye. Insha Allah sii sheer gareeya kheyrka hadduu Ilaahay subxaanahu wa tacaala raali ka noqdo. Ha iloobina inaad akhrisataan sidoo kaleeto suuratul kahf haddaa aqoonin inaad akhrisatid, kitaabka ayaa ka akhrisan kartaa amaba waa dhageysan kartaa. Kitaabkan waa ka raaci kartaa insha Allah. Wax walba oo kheyr oo wanaag ah sameysta. Caawa sidoo kaleeto waa habeenkii 11aad. Allahu aclam in uu kusoo aadi doono laylatul qadriga. Waxaan rabaa dhowr talooyin oo ku saabsan 10ka ugu dambeeya ee bisha barakeysan inaan ila wadaago. Dhammaanteenana kuwii ka faa'iideysta Ilaahay subxaanahu wa tacaala naga dhigo. Allaahumma aamiin. Ugu horeyn 10ka ugu dambeeyo ma ahan kaliya habeenka laylatul qadriga amaba tirooyinka isdhaafsan. Sidoo kaleeto tirada labalabada xitaa aad iyo aad ayay muhiim u tahay. 10ka dambe oo dhan ee bisha barakeysan aad ayay u muhiim u tahay. Bisha dhan aad ayay u barakeysan tahay. 10kiisa way ka faa'iido badan tahay. Marka 10ka ugu dambeeya waa 10kii ugu dambeeyay. Qatinka u kheyr badan sooma la dhihin. Marka waxaa rabaa inaan ila wadaago ugu horeyn 10ka dambe oo dhan haween walba isku day inaad soo kacdid salaatul leylka aad tukatid oo markaaseeti haddaa awoodid wax aad sadaqeysatid, hadday tahay cunto, hadday lacag tahay. Sidoo kaleeto xataa diriskaaga haddaa wax inaad sameysid aa u geysay, sidoo kale ajar ayaa ka helaysaa. Haddaa masaakiin quudisidna wayba kasii fiican tahay. Sidoo kaleeto dikriga inaad badsatid, dikri badan inaad sameysatid sida saliga nabiga Allaahumma salli calaa sayidina Muxamed. Subaxdii waaga markuu bariyo ilaa haddana habeenkii kaleeto inaad dikri, quraan aqris, istighfaar intaas aad badsatid. Sidoo kaleeto laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah, lahul mulku walahul xamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. 100 jeer dheh maalin walbo insha Allah biidnillaahi kariim. Sidoo kaleeto habeen walbo aqriso 3 jeer qul huwa allahu axad. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu dhahay qul huwa allahu axad waa nuska quraanka. Marka haddii aad 3 jeer aqrisidna adiga oo quraanka dhameeyay oo kala waaye. 10 habeenood oo 10 jeer adigoo quraanka dhameeyay oo kala waaye. Insha Allah ka faa'iideysta haweenada aad khayrka u badan insha Allah. Dhammaanteena kuwii ka faa'iideysta Ilaahay subxaanahu wa tacaala naga dhigo. Kuwii laylatul qadriga haleelo Ilaahay subxaanahu wa tacaala naga dhigo. Sidoo kaleeto markaad duceysanaysidna ducadaada mar walbo ku dar inaa muslimiinta sidoo kaleeto aa u duceysid, khaasatan inaa muslimiinta dambi dhaaf aa u weydiisid Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Allaahumma ighfir المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلهو أدن بداف مسلمين تا iyo muslimaadka. Sidoo kaleeto mu'miniinta iyo mu'minaadka kuwa dhintay iyo kuwa noolbo
mar walbo oo muslin u duceysid sidoo kale adigana malaa'igta ayaa kuu duceyneyso. Kheyrka aan ka wada faa'iideysano, siina sheer garee. Haddii uu qofka faa'iido adigana ajar ayaad ku leedahay insha allah. sidoo kaleeto subxaanallah walxamdulilah walaa ilaaha ila allah, allahu akbar mar walba ku celceliya. sidoo kaleeto labada kelmad allah subxaana watacaala uu ugu jecel yahay maalinta qiyaamana miisaanka kuu culeysinayo. subxaana allah wabixamdi subxaana allahi alcadiim insha allah biidnillahi kariim. qur-aankana intaa awoodid ka aqriso. haddii aa wada aqoonin sidoo kaleeto dhageyso, kitaabka ka aqriso. haddii aad tahay qof markaas salaatuleilka dukan karin sidoo kaleeto waa duceysan kartaa. telefoonkaagana waa ka aqrisan kartaa qur-aanka. ducadana mar walbo ilaahay subxaana watacaala gacantaada u taago. bari wax walba oo aad jeceshahay adduun iyo aakhiro wanaag mar walba allah subxaana watacaala weydiiso. sidoo kaleeto ducadaneetana ku duceyso rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasana wafi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar. sidoo kalena ha iloobin mar walbo ducadii nabiga sallallahu calayhi wasalam uu baray umana caaisha radia allaahu canha ee ahayd allaahuma inaka cafuwan tuxibu lcafwa facfu cannaa. insha allah waxaa rajeynayaa dhammaanteena kuwii soonkooda iyo salaadooda laga ansaxo oo iimaan dhab la imaado inuu ilaahi subxaana watacaala naga dhigo. fadlan sii sheer gareeya. jazaakallah kheyr daawashada videogan daawanaysay. inta aan videogan video lamid ku kulmeynan waxaa idinka tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sidaas iyo amaano allah.